Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay dooda maxaa dagaal u beddela. Markii aad dood gasho, waxaa kaca shucuurta qofka, waxaana laga dareemayaa muuqaalkiisa iyo hadalkiisaba. Balse waxaa muhiim ah inaad celin karto shucuurtaada markii aad xanaaqdo. Qofka waxaa laga rabaa inuu xakameyn karo naftiisa. Haddaba dooda maxaa dagaal u beddela? Waxaa dagaal u beddela inta badan 4 qodob. Labada qof ee doodaysa mid walba oo ka mid ah wuxuu rabaa guusha. Haddii aad u fiirsato labada qof ee dooda maalayacniga ka dhaxayso, waxaad dareemaysaa in qof waliba oo ayaga ka mid ah uu aad uga qaalinayo siduu ugu guuleysan lahaa dooda. Inta badan caqliyadda ama maskaxda oo faaruq ah. U fiirso doodaha lagu qabto fadhi ku-diriiryada, inta badan waa qaylo aan lahayn wax xikmad ah ama murti ah. Qof kasta oo ag istaago wuxuu garan karaa dadka dooda ka dhaxayso inaysan ahayn kuwa raba natiijo. Sugi maayaan ilaa in ay waqtiga isku dhaafsiiyaan. Balse maxaa sababay in dooda aan wax cilmi ah ku dhisnayn si joogto ah loo xaadiriyo galab walba fadhi ku-diriiryada? Wax laga doodayo oo aan xog badan laga haynin. Doodaha dagaalka isku beddela waa kuwa ku dhisan aragti ah hebel ayaan ka maqlay ama idaacadda ayaan ka dhageystay. Qofka dooda bilaabaya wax xog ah oo tixraac leh ma hayo. Hase ahaatee, wuxuu ku faraxsan yahay ama uu ku dareemayaa inuu noqdo qofka ugu dooda badan ee yimaada goobta. Dhagaystayaasha oo ku raaxaysta khilaafka labada qof iyagoo u fahansan madadaalo iyo qaraaxo. Dhagaystayaasha dood waliba ee dhacda waxay si dabiici ah ugu khasban yihiin in ay kala taageeraan labada qof ee dooda. Balse dhagaystayaasha doodaha maqaaxiyaha, waxaan dhihi karnaa iyaga ayaaba abuura dagaalka. Sababtoo ah waxaan aragnaa iyaga oo dooda sii kacaya. Tusaale, war ninkan ma warkaaduu beeniyey, war ninka iska dhici iyo wixii la mid ah. Maxaan ku yareyn karnaa in doodeena dagaal isku beddesho? Inaad ka cudur daarato ama aad ka aamusto qofka dooda kula soo gala. Markii aad gashay kadib, haddii ay doodu dagaal isku beddesho, jooji. Sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad mowduuca dhanba aad beddesho. Waa haddii dagaal idinku soo dhawaado, u oggolow qofka dooda idinka dhaxayso inuu hadlo. Adigana dhagayso oo si fiican oo degan u dhagayso. Inta badan doodaha aan macnaha lahayn waxaa kuu wanaagsan inaad ka fogaato. Sababtoo ah waxay duminayaan akhlaaqda iyo dadnimadaada. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxaa laga wariyey inuu yiri ka taga doodaha, maxaa yeelay qofka muslimka ahi ma doodo. Ama siduu yiri suubanaheena. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida.